Soomaalida degan wadankan Ingiriiska gaar ahaan magaalada London waxaa lagu wargelinayaa in markii ugu horeysay laga furay magaalada tan London jaamacad Islaami ah oo ay maamulayaan aqoon-yahano Soomaaliyeed. jaamacadan magaceeda waxaa la yiraahdaa European Institute of Human Sciences ama Kulliyatul Eurobiya lil Ulum al Insaniya. jaamacadan waxaa ka faa'iideysan kara dadka Soomaalida iyo dhammaan dadka muslimiinta ee daneynaya inay ka faa'iideystaan culumta islaamiga ee lagu baranayo jaamacada. Bismillahir Rahmanir Rahim. jaamacada waxaan u diyaarinay ardayda baranaysa macallimiin iyo khubaro aqoon-yahano aad ugu xeel dheer shariicada islaamka baritaankeeda si casriyeysan oo culumta casriga ah la soconaysana wax u baraya hadii la yiraahdo. jaamacada takhassuskeedu intaan hadda furayno waxa weeye وقايبتا دراساتك إسلامك إيو شريعة لبدا سفرينا وحيلا هذا سدح تخصص باتشلر أو شريعة إيو باتشلر أو دراسات إسلامك اللغة العربية أو دبلوم إيو قرآنك إيو قراءات كيسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحا إلهي مهديسة إن نوصر قشي إن نفرنا جامعة إسلامية أي مامولان دد صوماليات waxaana ka dhigi doonaan macallimiin aqoontooda sareysa jaamacadan oo dabooli doonto insha Allah baahida ardayda Soomaaliyeed ee ka baxeen dugsiyada sare intay u safri lahaayeen jaamacad Islaami ah waxa u suuragalaysa insha Allah inay halkaan ku qaataan daruusta islaamiga ahayd. jaamacadan sidoo kale waxay leedahay furuuc fara badan oo Faransa ka farac ka furan Wales ay ka furantahay Birmingham London ay hadii u suura gashay inay jaamacadaas eedan laga furo. إلهي سبحانه وتعالى توفيقي سيكون هاتي مركا وحا ugu bashaarayna Soomaalida inay arintaas isqoraan isdasjiiliyaan isla markaasna ay ka faa'iideystaan. waa tahay daawadayaal waan filayaa inaad si weyn u fahamteen jaamacadan cusub ee islaamiga ee laga furayo magaalada London oo ay aqoon-yahano Soomaaliyeed hormuud ka yihiin. haddaba wixii tafaasiil ah yaan laga buuxinin isqoristu way socotaa. jaamacada waxaad kala xiriiri kartaa telefoonka iyo adresska ku qoran